محمد عبد الله فرماجو قدوميها أقل كسر مدن عبد حاشي عبد الله قدومي كحجين كلها الشعب كمدن مهد عود مدحوينياش الدولة ده حمناها كدولة فدرال كجبلان قلمدوك هرشبيل كونفور قلبيت مدحوينياشي هو الصومالية مدن الشيخ شريف أحمد يا مدن حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء هو الصومالية مدن علي محمد جيدي مدحوينياشي هو بنتلان مدن عبد الرحمن محمد فرولي دكتور عبد الولي محمد علي قاس مدحويني كحجين كبنتلان مدن أحمد علمي عثمان يقدوميها يقول لبديس قدومي كحجين يقولها وكيلة بنتلان حمناها قلياشة كلا دوان دولة فدرال حمناها قلياشة كلا دوان حمناها كدولة فدرال حمناها باش عالم كأي سفارتها سياسيينتا waxgaradka ismada cufaasha haweenka dhalinyarada qaybaha bulshada rayidka ah ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee Puntland oo runtii maanta halka sugay ammaanka ummadda inta leeg ee halka ku naaloonayso sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii qabanqaabada ee xafladan quruxda badan soo qabanqaabiyay intii gacanta ka geysatay mudanayaal iyo marwooye waxaan كسلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سيدو كلا دمانتين إذن كم هاد علنا يا سوء جيبست مرتقات كان إذن في دني شرف وين أي نقطة هاي إن أن دمانتين أن جرو وأتمار دان إن أد نلقي ستان إن أد لقي ستان برشاد الرئيس بنتلان فرحة يدبال دقة إسبدل كعصب waxaan kale oo farxad gooni ah noo ah inay garow caaw kulmisay hogaamiyaashii Soomaalida waxay taasi muujinaysaa xushmadda iyo qadarinta ay Puntland u hayaan Puntland sababihii loo aasaasay ayaa ka mid ahayd xoojinta midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dib u dhiska dawladda Soomaaliyeed oo federaal ah oo dib u soo celisa karaamadii dadka Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin waxaan caawa u dabaaldegaynaa isbeddelkii siyaasadeed ee Puntland ka dhacay 8 Janaayo waa doorashadii shanaad oo lix madaxweyne si nabadgelyo ah oo xor oo xalaal ah ay ku kala wareegeen awoodda waxay muujinaysaa bisayl iyo dimuqraadiyad 20 sano ka hor ayay ahayd markii la aasaasay Puntland sida aad la wada socotaan hamigii iyo hanaankii lagu aasaasay waxay ahayd dhisidda nidaam dawladnimo oo u gaar ah deegaanada Puntland iyo raadinta dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah marka aan dib u milicsado guulaha la gaaray hamigaas 20 sano kadib waxa xaqiiq ah in wax badan ay qabsoomeen Puntland waxa laga yagleelay hay'ado dawladeed oo maanta leh xafiisyo bixiya adeegyada bulshada waxa jira ciidamo heegan oo sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha waxaa jira kaabayaal dhaqaale oo dawladnimada lagu hirgelinayo dhinaca raadinta dawladda Soomaaliyeed waxaa la socotaan in Puntland ay ka geysatay kaalin hogaamineed dhismaha dawladda federaalka ah ee hadda jirta waxaan u mahad celinayaa madaxdii naga horeysay iyo aasaasiyaashii Puntland dhinaca kale waxaa xaqiiq ah in ay jiraan caqabado badan gaar ahaan dhinacyada siyaasadda tayada hay'adaha oo aan gaarsiisnayn heerkii la rabay dhaqaale yari culays dhinacyada amniga ah dagaalo furan ee al-shabaab iyo daacish kuwaasoo xadgudub xuduudaha Puntland habacsanaan dhinaca garsoorka iyo kaalinta haweenka iyo dhalinyarada dhinaca siyaasadda oo hooseeya mudanayaal iyo marwooyin isbeddelka cusub wuxuu ku soo beegmay xilli baahi weyn loo qabo tayeynta hay'adaha dawliga ah iyo dardargelinta adeegyada bulshada dhinaca siyaasadda amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada dhaqanka iyo midnimada waxaa si gooni ah xoog u saari doona arrimaha soo socda taabagelinta sharciga iyo qaanuunka si loo helo hay'ado dawli ah oo iskor joogtay isu dheelitiran waxaan dib u qaabaynaynaa hay'adaha dawliga ee Puntland iyadoo dib u eegis aan ku samayn doono tirada tayada iyo xeerarka lagu aasaasay hay'adahaas si loo kala cadeeyo waajibaadkooda shaqo sarana loogu qaado tayadooda shaqo
ayna ula jaan qaadaan isbeddelka cusub ee aan doonayno in laga sameeyo dhinacyada siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada hirgelinta nidaamka dimuqraadiga ee xisbiyada badan waxaan kale oo xoojinaynaa hannaanka maamul dadejinta si fursad loo siiyo shacabka reer Puntland doorasho furan oo xor ah oo ay ku doortaan madaxda ay la xisaabtami karaan isla markaasna ay ka helaan adeegyo bulsho oo tayo leh ilaa heer degmo iyo tuulo xoojinta kaalinta Puntland ay ku leedahay Soomaaliya iyo hirgelinta nidaamka federaalka ah iyadoo la ilaalinayo maqaamka Puntland iyo dowladnimadeeda ku dhisan hannaanka dowladnimo oo ay sal u tahay in wax la wada leeyahay waxna la kala leeyahay iyadoo la abuurayo isfaham iyo wada shaqayn dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliyeed si loo xoojiyo soo celinta dowladnimo Soomaaliyeed waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa ilaalinta midnimada Puntland dad iyo dhulba iyada oo ahmiyad gaar ah la siin doono soo celinta dhulka maqan ee dastuurka Puntland uu qeexayo dib u habeyn mugle ayaan ku samayn doonaa hay'adaha amniga ee kala duwan dhinacyada shuruucda istiraatiijiyada tirada ciidanka tayadooda iyo xuquuqdooda waxaan mudnaan gaar ah siin doonaa ciribtirka canaasirta argagixisada ee ku dhuumalaysanaya buuraha calmadow iyo calmiska dib u habeyn ballaaran ayaan ku samayn doonaa nidaamka maaliyadeed annaga oo xaqiijinayna dhaqangelinta iyo ku dhaqanka miisaaniyadda dowladda ay ansixisay golayaasha dowladda waxaan la dagaalamaynaa aafada musuqmaasuqa ragaadiya nidaamka dowladnimo iyadoo la xoojinayo isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta lana adkaynayo maamul wadaagga iyo sarreynta sharciga madax bannaani buuxda la siin doona hay-adaha dowladda u qaabilsan isla xisaabtanka gaar ahaan xafiiska hantidhowrka waxaan dib u habeyn ku samayn doonaa garsoorka gaar ahaan hannaanka soo xulidda howlwadeennada garsoorka abuuridda hannaan kormeer iyo isla xisaabtanka ee garsoorka dhexdiisa iyo dib u habeynta xeerarka iyo habraaca hay-adaha garsoorka waxaan mudnaan gooni ah siin doonaa horumarinta dhalinyarada dhinacyada shaqo abuurka sare u qaadidda xirfadaha u sinaanta fursadaha shaqo si eex la'aan ah iyo ballaarinta ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka haweenka Puntland waa lafdhabarta waxay lafdhabar u yihiin horumarka bulsho dhinac walba sidaa darteed waxaan xaqiijin doonaa xoojinta helitaanka xuquuqaha haweenka iyadoo si gaar ah xooga loo saari doono inay helaan xuquuqdooda bulsho siyaasadeed dhaqaale oo dhammaystiran mudanayaal iyo marwooyin isbeddelka cusub wuxuu sidoo kale sii wadi doonaa iskaashiga iyo waxwada qaybsiga kala dhexeeya maamulada kale iyo dowladda federaalka ah waxaan ku kalsoonahay inaan ku gudbin doono caqabadaha taagan iyo kuwa imaan doonaba sidii aynu si wada jir ah u ilaalin lahayn shuruucda dalka la iskuna tixgeliyo shaqooyinka ay kala leeyihiin heerarka kala duwan ee maamulada dalku waxaana sharafkii iyo karaamadii dadkeenna iyo dalkeenna ku soo celin karnaa wadajir isku dubaridid shaqooyinka qarankeenna horyaalla waa kuwo muhiimad gaar ah leh oo culus sida dagaalka al-shabaab iyo daacish dhammaystirka dastuurka hirgelinta nidaamka federaalka ah iyo diyaarinta hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah sanadka 2020 ma ahan inaynu hareer marno xeerarka aynu degsannay ama aynu ku mashquulno khilaafaadya la xallin karo waxaynu u baahannahay bisayl intaa ka ballaaran iyo isku dhibrin walaalnimo iyo isqadarin ku dheehan tahay maanta ayaynu talada haynaa ee aynu dadkeenna iyo dalkeenna u jeexno waddadii midnimada sarraynta sharciga iyo dib u dhiska dalkeenna mudanayaal iyo marwooyin waxaa gunaanadka ka codsanayaa qaybaha kala duwan ee bulshada reer Puntland inaad talo iyo tabar la barbar istaagtaan dowladda iyo isbeddelka cusub si aan ugu miro dhalinno yoolka aan u dejinnay dardargelinta shaqooyinka iyo adeegyada dowladda waxaa si daahfuran oo joogto ah u soo bandhigi doonaa qorshaha dowladda oo faahfaahsan iyo warbixinno iftiiminaya horumarka laga sameeyey qorshayaasha waxaan sidoo kaleeto ka cudur daaranaynaa dhammaan martida sharafta leh ee noo timid wixii gaabis ahaa ee ka dhacay muddadii ay joogeen ilaa iyo marka ay ka tegi doonaan waxaan si gaara uga cudur daaranaynaa
habkii nidaamka ee maanta hoolka oo runtii dhallinyaradii ka howlanayd iyagoo dadaalaya wax badan ay ka tambateen dadka oo aad u fara badnaa annagoo cusub waxyaabo badan oo jira waxaan mar labaad iyo saddexaad ka mahad celinayaa dadku siday noo soo ajiibeen iyo sida sharafta iyo karaamada ku jirto ee halka maanta loo yimid waxaan biirinayaa dhammaan baaqyadii ku saabsanaa in la iscafiyo in dadka loo turo in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo in si wada jir ah gacmaha la isku qabsado waxaan runtii maanta halka ka dhacay waa taariikhi qof ka maqan oo Soomaaliya ama Soomaali ah oo xilkas ah oo xil haya ama xil soo qabtay maanta uu yar yahay waxaan rajaynayaa insha Allah inay noqoto bidaaya tayyib ah oo Soomaalidu horseedo horumar wada jir iyo isku tashi fiican haddaynan annagu isku tashan way adag tahay dad shisheeye inay danaheena ka shaqeeyaan waxaan ugu dambayn u mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalka dabaaldegga iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo nala wadaagtay farxadda iyo caafimaadka waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaah